بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال meel kastoo adduunida ka joogtaanba halkani waa Home Cable TV kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo aanu ku booqanay xafiiskiisa magaalada caasimadda ah dowladda deegaankaasi ee magaalada Jigjiga muddo haatan laga joogo ilaa 4 bilood iyo xoogaa ayuu xilka hayaa madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waxaanu jecelnahay bal inaan weydiino waxyaabihii kala duwanaa ee aad kala socoteen warbixinaha telefishinka ee ka dhacayay deegaanka iyo saameynta deegaanka ay ku yeelatay isbedelka rasmiga ah ee deegaanka ka hirgalay ugu horeyn madaxweynaha waxaan ku soo dhaweynayaa Home Cable TV ku soo dhaw madaxweyne adigoo aadan kaaga mahadnaqayno waraysiga khaaska ah nasiisay markii ugu horeysay anagoo madax banaan oo kugu soo booqanay dowladda deegaanka mahadsanid maxamed soo dhaw mudane madaxweyne isbedel baa deegaanka ka dhacay isbedel balaaran buu noqday xukuumadii hore wad bedesheen xukuumad cusub baa timid saameyntiisu saameyn xoog ah ay noqotay taasi sidee bad u wajahaysaa isbedelada aan ka hadlayo ammaanka qaybtuu ka yahay isbedelada dhanka ammaanka ama security sector reformku si fiican bay u socdaan dhab ahaan waa meelaha aan isleenahay guulo weyn baa laga soo hooyay waxaa tababar 2 bilood loo furay ciidamadii taliyaashii ciidamada dib booliska biliska caadiga maleeshiyaadka asluubta maleeshiyaadku waa weli weeyaan ilaa 1400 ka tirsan baa loo furay tababarkaas oo runtii xooga saarayay in la baro xuquuqda insaanka xorriyadda qowlka qaabka inay bulshada u adeegaan ay tahay iyo ku dhaqanka dastuurta iyo qawaaniinta caalamiga ah ee la xiriira xuquuqda insaanka arrintaas arrin hadda ka hor jirtay maahan taas saameynteedii durba waa la dareemayaa shacabku iyadoo oo tacadiyo ballaaran oo hadda la sheegi karo ayna dhicin 4 bilood u dambeysay meelaha qaarkood askar weli aan tababarka qaadan oo leeyahay shacabka halkaas waxa ka dhacay waa qof baa la garaacay wax noocaas dhacdooyin xitaa dalalka horumaray adduunka ka dhaca oo police brutality oo kale waxyaalaha yidhaahdaan here and there ka dhaca way jiraan kuwaas oo kale 100% weligood ma dhamaanayaan isbedel kastoo jira way dadku marxaladaha ay ku shaqeynayaan iyo duruufahooda iyo dadka la dhaqmayaan ayaa keeni kara marka qaarkood in gafaf dhacaan kuwa noocaas ahna accountability mechanisms lagu ilaaliyo ama dabagal lagu sameeyo ama lagu ogaado ayaa jira hadda marka waxaan oran karnaa runtii xagga ammaanka isbedel wanaagsan baa ka dhacay kolka laga tago isku dhacay qabiil oo meelaha qaarkood koobnaa laakiin hadda maalmihii u dambeysay ilaa xadka isku dhacay balaaran ka dhacay marka laga reebo oo la filayay inay dhacaan marka loo eego qaabkii ku yimid isbedelku mar walba isbedel dhaco oo meel uu ka dhasho systemku intuu dhismayo dib u adkaanayo waqti uu qaadanaya dhanka ammaanka marka taa laga reebo 4 bilood u dambeysay runtii dowladda federaalka iyo dadka shacabkuba waxay dareemayaan in isbedel aad u xoog weyn dhanka ammaanka deegaanka uu ku yimid baa la aaminsan yahay waayo markii hore ammaankii dadku haysteen ammaan sax u ahaa lama odhan karo waayo ammaan cabsi ku jirto iyo caburin iyo dhibaato ayuu ah markaasina amaan ma qofka haduu gurigiisa amaan daradu ma aha in lagu xiro lagu garaaco amaan daradu waxa weeye gurigaaga inaad nabad ku seexan weydo argagixiso inaad ku jirto baqdi inaad ku hayso jidka in lagu haraas gareeyo wadada aad mari karin oo halkan wajaale wixii ka taagnaa aad ogtahay sidoo qiyaamaha dadka la tubayo la baarayo la dhibaataynayo qaarkood loo hanjabayo cabsi guud ay iska jirto waxaas oo dhan hadda way dhamaadeen marka waxaan oran karnaa runtii isbedel muuqda ayaa xaggaas laga sameeyay laakiin in la dhamaystiro oo xoogagii maaragtay dib loo habeeyo ciidamadii dib structure-koodii loo hagaajiyo hogaamintoodii loo hagaajiyo akhlaaqdoodii maaragtay la sii xoojiyo tababaro dheeraad la siiyo dadkiina lagu sii dhexdaayo ayaa loo baahan yahay taasna hadda way socotaa way mudane madaxweyne isku dhacyada qabiilku ama qowmiyaduhu dad badan baa ku dhintay dowladdaaduna maalmihii ugu dambeysay shaqooyin badan bay halkaa ka waday maxaa xal lagu xalin karaa sidan imika dhaanta la iskugu wajahayaa qowmiyad oo aad xal gaari kartaan maadaama dadka Soomaalidu ay dad dhaqanka iyo fahanka iyo heshiisiinta intaba yaqaana yihiin sidee dadkii kale loola wada noolaan karay arrinta loo dhameyn kara waxaad ka hadlaysaa isku dhacyada u dhaxeeya Soomaalida iyo qowmiyadaha kale kuwaas waxa weeye dhibaatooyin aan dhaxalay weeyaan runtii ma ahan kuwa hadda bilowday kuwa soo jireen bay ahayd marka la eego statistically dhacdooyinka dhici jiray ee dhinaca khilaafaadkana 90% waxa la oran karaa way dhamaadeen marka laga reebo meel kooban oo ay ka mid tahay Mooyaale iyo Tuulo Guuleed oo halkan
dhab ahaan labada goob ba hadda ka jiraan iyo hadda maalmaha u dambeysay oo dhankan xuduudda dhulkan Anfarta dhexdiisa Soomaali degan isku dhaceen maamulka Anfarta saddexda dhacdo marka laga reebo wixii jiray ee dagaalo lahayd baahsana ma jiraan hadda kuwaas laftigoodu isku dhacyo lagu tilmaami karo Soomaali iyo Oromo islayna soo kala runtii maaha waa isku dhacyo jiray hadda ka horba oo laba beelood oo laba dhinac ka soo kala jeeda ku dhaxmaraya meeshan Tuli oo kale ma aha boqolkiiba isku dhac Oromo iyo Soomaaliya dad Soomaaliya gudihiisa isku dhac ka jiraan ugu jira Tuli guuleed oo kale beesha Jaarso oo Soomaaliya dad qaarkood dadkii u codeeyay Soomaalinimada iyo beel kale oo meesha dhigta oo Soomaaliyeed iyo halkaas dhibaato ka dhex taagneed wax soo jireen weeyaan marka sida qaabka loo dhigaa marka qaarkood boqolkiiba si sax ma laakiin way jiraan saameyn dhanka Oromiya ka imanaysa way jirtay arrimahaas si loo eegi lahaa waa muhiim arrinta mooyaane waa dagaal u dhaxeeya laba iyaguna qabiil oo mid Soomaali mid Oromo yahay oo meeshan isku haysan jiray muddo dheer tan iyo waqtiga xidhiidhsanaas oo hadda laakiin dhibaatooyinkii la abuuray 3 sano ka hor awgood u sii faafay weeyaan dagaal ballaaran oo saf ballaaran oo Soomaaliya oo ka dhaxeeya runtii ma jiro ormadu hadda dhulkeena way timaada way dhex martaa Soomaalida dhulkooda dhex martaa wali ay u baahan tahay meelaha qaarkood in cadfadii jiray laga saaro oo dadaal u baahan tahay waa wadna dadaalkii maamulka Oromiya la soo kulanay dawladda dhexe ciidamada geysay meelihii loo baahnaa marka hadda waxaan aaminsanahay inuu jidkii xalinta khilaafaadkaas la hayaan aaminsanahay ma filan in isku dhacyo ballaaran wadamo ay dhici doonaan madaxweyne marka laga hadlayo deegaankan imika aad u dhaxashay ama shaqadan cusub aad qabatay culayska ugu badan ee deegaankan dhibaatada ku hayay adduunyadu dhamina ka hadashay waa tacadiga xuquuqda aadamaha dad badan baa dhibaatooyin soo gaadheen ama dhintay ama ku curyaamay ama maskaxiyan u naafoobay ama dadkoogii ehelkoogii oo dadba ka mid ahayd ee dhibaatooyin soo gaadheen sidee doonaysaan dadka noloshooda inaad u maarayso qaab noocee doonaysa inaad u gashaa horta arrintaas waxay u baahan tahay diyaar garow ballaaran marka haddaba waan wadnaa in dadka intii ugu sii darnayd gaar ahaan dumarka wixii kufsi lagula kacay wixii jirdil kale oo baahsan oo naaf jirkooda ka dhiga loo gaarsiiyey qaar badan hadda dhakhtar u dirnay waa jira India u dirnay qaar badan oo dhaqaalahan taageernay waa jira laakiin hadda waxaan u wadnay runtii si yar marka qofkii dhibaatada qabi ku yimaado jawaab firefighting oo kale waxaan rabaa si structural u galo xafiis u sameeyno xafiiskaas aqoonta dadkii victimska ama dadkii wax la waxyeeleeyay sameeyno xafiiskaasna uu noqdo xafiis screen gareeya dadkii dhibaatada ku dhacday si uu kala daran yihiin qaar waxay u baahan yihiin dhakhtar qaar waxay u baahan yihiin counseling in loo sameeyo trauma centers la sameeyo qaar waxay u baahan yihiin dhaqaale ahaan in reerkoodii noloshooda dib loo dhiso marka hawsha waan ku jirnaa dhawahan wax weyn maanaan ilaa hadda ka qaban maadaama awood u badan aan saarnay dhisid maamul oo iyadoo meesha maamulka ka jiray tan iyo heer xaafadeed u burburay tan iyo heer kaabine in dib loo dhiso hawl sahlan maahayn structure-kii kadib ilaa iyaduna ciidamadii security sector-kiina dib loo reform gareeyo hawl weyn baa ahayd waxaa intaa baba socotay in adeeg la bixiyo oo la shaqeeyo marka waqtigii la hayo runtii intaas laga gaarsiin karay iyo heshiisyadii nabadeynta ee urradii dagaalami jiray la galay iyo isaguna waqti buu qaatay arrimahaas awgeed weli maanaan sidii loo baahnaa xafiisyadii iyo inaan diyaarin aanan noqon laakiin waa hawl aan ku tala jirno saasaan isla ku maaraysaan mudan madaxweyne waxaa jira marka laga hadlayo deegaanka dhibaatadii dhacday lacago badan oo la sheegayay la dhacay oo dadku u sheegayaan ama maamulkii hore ama dadka baxsaday ma haysaan weli dhibaatada meesha ka dhacday daraasaad sax ah oo sheegaysa wixii deegaanka hantiya ka maqan ma dhameystirna laakiin xafiiska hanti dhowrka guud ee hadda iyo xafiiska la dagaalanka musuqa labaduba iyo xafiiska xirlaanta federaalka inta deegaanka oo iskaashanaya waxaa jira baaritaan ballaaran oo musuq maasuqi iyo boobka ka dhacay deegaanka oo la sameeyey marka in nagu filan in dadkii dambiyada galay maxkamad lagu keeno cadayna waa la hayaa waana la diyaariyey waana arrin aan rabno inaan dhawaan gallo oo maaragtay dadkii howlahaas ku dhaqmay si sharci loo keen in badan oo ka mid ah waa in xiran iyo in carartay in badan oo joogtaana way jirtaa oo isugu jirta mas'uuliyiintii hore iyo ganacsato labadaba ganacsato Soomaali iyo kuwa aan Soomaali ahayn isugu jira marka boob ballaaran ka dhacay deegaanka balaayiin lacag ayaa la lunsaday waxaa taa ka sii daran tayo xumada mashaariic la leeyahay waa la sameeyay oo balaayiin lagu bixiyay laakiin wax dadka ugu filan yihiin una jirin marka arrimahaas oo dhan
waa la soo bandhigaa oo TV-ga naga laga soo daayaa haddana waxaan ku jirnaa in caddayn ku filan la diyaariyo kadibna sharciga la horkeeno dadka arrimaha sameeyey bilaha soo socda insha Allah haddii la hawlan gelin noqonaysa madaxweyne taa aad leedahay mashaariic aan sideedii loo qabanin xogahan wax kamid ah biyahoo kale magaalada Jigjiga marka biyo qaraar bay cabaysaa iyadiiba culaysaysta ceelal badan oo la leeyahay waa la sameeyay oo aan ahayn ceelalkii rasmiga ah ee dadku si sax ah uga cabeen lacago badanna ay ku baxeen marka ma waxaad u jeedaa mashaariicda aan hirgelin kuwaas u jeedaa madaxweyne way ka mid yihiin kuwaas kaliya ma laakiin jidad baa jira buundooyin baa jira garoon stadium Jigjiga halaga dhiso lahaa international ah jira waxaa jira dhakhaatiir isbitaallo qoreer mid laga dhiso kale oo hadda loo dhutmaan kan isbitaal quman yahay tayada awgi tayada meesha iyo lacag ku baxdaan islahayn marka way badan yihiin mashaariicda noocaas aad u badan yihiin laakiin biyo gelinta Jigjiga mid ay ka mid tahay oo yaraan 500 milyan lagu bixiyay laakiin hadda wax lacag badan oo 350 milyan la bixiyay laakiin work progress ka hadda la gaaray 10% xitaa una gaarin boqolkiiba 10 xitaa horumar laga gaarsiiyay boqolkiiba 70 lacag ay baxday mashaariic noocaas aad far badan baa jira marka way ka mid tahay way madaxweyne waxaad dhawaan heshiis gasheen ONLF dowladda Itoobiya halkan bay joogaan buugga istiraatiijiyadda isbedelka ee dhawaan lagu soo bandhigay xisbiga aad ku shirayseen magaalada Jigjiga waxaa ku qornaa inay jiraan dad isbedelkii yimid iyo heshiisyadii lala galay si khaldan uga faa'iideystay oo jabaadiye ay ka mid yihiin oo ama hub qaatay ama xerooyin ciidan samaystay ama meel kale samaystay deegaanka Soomaalida miyay ka jirtaa dhibkaasi buugga ku qornaayay warbixinaha lagu soo bandhigay deegaanka naga ma jiraan ururo horta ururo badan ma jirin hal urur baa jiray oo halgan hubeysan ka wada deegaanka muddooyinka u dambeeyay ururkaas ahaa ururka ONLF ilaa hadda wax dhibaato ah oo deegaanka uu ka sameeyay oo ka baxsan heshiiskii la soo galay ma jiro laakiin ururo kale oo hubeysnaa oo dalka soo galay oo dhibaatooyin ka bilaabay deegaanadii ay yimaadeen way jiraan waxaana ka mid ah ururka xoreynta oromada ee deegaanka oromada oo ilaa haddaba dowladdu ay maaragtay la tacaalayso dhibaatooyinka marka ururka ONLF waxaa ka mid ahaa in goobihii ay joogeen markii heshiiska la qaatay tacaddi badan ay dadka ku bilaabeen jidadka xidhaan ONLF baa la yidhaha Oromo Liberation Front baa la yidhaha dadka inay garaacaan xidhaan dilaan aad runtii ay tacadiyo badan u sameeyaan muddo gaaban gudahoodba gaar ahaan gobollo ka mid ah Oromiya dhexdeeda way jiraan sida kala socotaan saxaafadda isfahan daran ay ka timaado qaabka heshiiskii loo fulin lahaa laakiin ururka ONLF ilaa iyo hadda askartoodii gudaha ka joogtay iyo kuwii dibadda ka yimid labadaba waxba yaraatee dhibaato ay ku kaceen ma jirin heshiiskii aan soo qaadanay ee lagu wada hadlay ee ahaa in si nabadgelyo ah ay dhanka uga dhaqdhaqaaqaan sidiis bay u fuliyeen baa la oran karaa balse waxaa jiray dareenno ay ka yimid muxuu ahaa arrimahaas ka dhacay meelaha kale oo halkan ka dhacaana shaki uu ka abuurmay shakigana waa laga wada hadlay badankiisina waa la xaliyay hadda askartii ciidamadii jabhadana badankoodu waxay hadda soo geliyaan xeryo loogu talagalay halkaas oo laga sii ambaqaadi doono sidii maaragtay demobilization loogu samayn lahaa ay maaragtay qaybihii dambe heshiiska loo sii fulin lahaa way madaxweyne haddii heshiiska la wada galay idinkuna xisbigii EPRDF dowladda maamulka Itoobiya oo dhan aad ku hoos jirtaan hadhow ONLF ma xisbi gaar ah noqonaysaayo qaabkaasi oo inay hadhow doorashada u tartanto idinla tartanto idinku xisbigii dowladda iyadoo mucaarada ay ku tartanto si xoran wadankii u qabsadaan mise qaabkan jabhadeynta ee inay ONLF yihiin oo mabdaoodii ahaa inay meeshan gaar noqoto deegaanku ayuunbay weli ku taagnaanay horta in mabdaoodaas in meeshan gaar noqotada ah ay wataan oo si siyaasi ay u wataan waa loo ogolyahay qasab maaha inay ka noqdaan mabdaoodii si ay u noqdaan urur siyaasi shuruud noocaas oo precondition ma jirto dastuurku uu ogolyahay ahdaafta hadda ay aaminsan yihiin iyagoo aaminsan in ay barnaamij siyaasadeed ka wadaan deegaanka dhaqdhaqaaq waa loo ogolyahay lama diidana marka hadda keliya waxaa meesha yaalla waxaa weeye in ay iyagu qaabkii la qumanaada inay u socdaan ay u galaan barnaamij siyaasadeed sida kaliya ii muuqata waxa weeye in tartan siyaasadeed maadaama urur xisbi siyaasi ay noqonayaan inay gelayaan marka xisbiga talada haya deegaanka iyo iyagu 2 sano kadib inay ku loolamaan
iyo xisbiyo kale oo soo baxa hadday jiraan adu waxaa ka timid Somaliland marka arrin xaggiina iska caadi ah oo ah tartanka siyaasadda asxaabta ku salaysan inuu xagga annaga noo bilowdo ayaan rajaynaynaa way madaxweyne shirkina xisbiga la qabanaya adigu imika oo sidii loo xuliyay xubnaha awood qaybsigii idinku ma qorshihii hore oo ayaad ku soconaysaan mise dadkii deegaanka oo dhan baa laga wada qayb gelinaya fursadihii fulinta iyo golihii dhexe la wada siinaya taasi ma cabasha ka jirta khilaaf baa ka taagan wax khilaaf ka taagan arrinta diyaar garowga shirweynaha xisbiga ma jiro haweenaate qaabka awood qaybsiga ee xisbiga ee fulinta deegaamada ay ka imanayaan marka hore gobol baa la isku hayay dhinac qabiil baa markaa sidee noqonaysaa taas waa laga wada hadli doonaa laakiin xisbigani waa dad aragti isugu yimid inay noqdaan fikir ahaan aniga ra'yigayga ku dhiibaya shakhsi wali inkastoo dee weli si rasmi ah oo official aan go'aan la gaadhay oo saas formada hala raaco aan la odhan laakiin waxaan garan karaa in xisbi dad kala kankaana oo kala socda ay isugu imanayaan una noqon doonin dadka la soo xulay inay noqdaan dad isku aragtiya oo lagu soo dooranayo kartidooda iyo integrity ama sumcadda bulshada ay ku leeyihiin taas inay noo noqoto asaas taas iyadoo la raacaya dadka la soo xulaya dabcan beel gaar oo sumcadda ma jirto beel gaar oo sumcadda xun ma jirto shakhsi gaar oo karti reer gaar oo karti leh marka naturally the law of average wuxuu sheegayaa in marka dadkii ay iyaguba dad kala duwan noqon doonaan dadka imanaya meesha laakiin si ula kac ah in la yiraahdo reer hebel inta hala siiyo reer hebel inta hala siiyo ma dhici doonto way madaxweyne dhinaca kontraagyada marka dawladda laga qaadanayo dad badan oo shicib ama ganacsata ayaa fursada ka faa'iideysta dhismaha wadooyinka biyaha caafimaad waxaas oo dhan dadkii ka faa'iideysanayay imika waxa loo sameeyay inay si xaro oo xalaal ay u tartamaan ma arrintaasi ma socon kartaa bay kula tahayo mise qaraabe kiilkii jiri jiray dhaqanka Soomaalidu waliba u badan yahay ayba jiri doono madaxweynaha iyo ehelkiisa madaxweynaha iyo qaraabadiisa madaxweynaha iyo ciddu saaxiibka leeyahay madaxweynaha cidda u dhow ayba fursada dhaqaale ee mashaariicda wadanka laga qaadanay helaysa sidee kula tahay in uu sii socon karto si cadaalad anaga go'aanka noo yaala waxa weeye si cadaalad uu socdo shuruuc iyo qawaaniin bay leedahay qaabka qandaraasyada lagu bixiyo procurement guidelines baa jira qaabka wax loo soo iibiyo contracting loo sameeyo shuruuc anagu aan abuurayna ma waa kuwa jiray oo dalku leeyahay oo hadda ka horba deegaanka laga dhaqmi jiray laakiin sharcigu keligii kuma filna haddii political commitment ama go'aan siyaasadeed oo in sharciga loo hoggaansamay hadduuna jirin warqadaha haddii waa la buuxin karaa tartanka awalba markii qaraabkiilka la sameynayay qandaraaska broskiisa waa la marin jiray sharci waa la guddi saxiixa waa la samayn jiray waa la waafajin jiray in sharciga la waafajiyo iyadoo natiijada la sii ogyahay cida la siinayo anaga waxaa naga go'an in tartan xor iyo xalaala dadku ay u galaan si equal opportunity ay u helaan dadku oo ay cadaalad ay ugu tartamaan in qaraabkiil lagu wado iyo in kale kulley waxaa fiican inaan xilli kale iska wareysano marka ay aan aragno natiijada sida u socdaan hadda anagu go'aan ahaan asaasa noo taagan waxaan qabaa inaan 100% arrintaa fulin doono oo wax ay ka iman doonin taa macnaheedu ma aha all different levels of dawladda 100% shuruucdii la sameeyay bay raacayaan ma meel kama dhacdo arrintaas marka cid khalad qandaraas lagu siiyay ma dhici doonto cid wax loo hoosta looga disay ma dhici doonto ma oran karno mas'uuliyadana saaran waxa weeye inaan ka diyaar garoodo inayna dhicin oo qawaaniintii iyo shuruucdii si cad in loo dabagalo inaan ka shaqeyno anagu marka ay dhacdada inaan saxno corrective measures la qaado ee la yiraahdo ciddii arrintaa ku dhaqantana tallaabo laga qaado oo systemku isagu isa soco mas'uuliyiintuna ay wax ku qaataan qaabka loola dhaqmo kuwa ku dhaqma boobka iyo qaraabkiilka marka in systemkaasi transparent iyo cadaanta leh in la sameeyo taasi ay u hirgasho procedure badan oo la maraa jira iyo qaab badan oo loo sameyn karo dhinac waxaan sameynaynaa in auditing systemkii uu shaqeeyo qaabkii auditka loo sameyn lahaa hanti dhowrku inuu shaqeeyo xafiiska systemkiisa gudaha procurement procedureski in la raaco gudiyadii in la sameeyo siyaalo kala duwan in loo cid kale oo sii controlsha in la helo oo maaragtay vetting process macnale in meeshii laga sameeyo baaritaan noocaas in la sameeyo markii taas soo dhaaftana in
wixii halkaa ka gudbay ee khaladaadina shacabku inay ku baraarugaan si maadaama ay muhiim tahay in saxaafaddu ay hor ahaato oo saxaafadduna iyaduna ay ogaato waxyaalaha dhacaya xafiisyada ka soo warbixiso dhibaatada shacabkana soo gudbiso annaguna aan ogaano oo ku baraarugno haddii annagu aan iska ilaalino tuugnimo gaar ahaan hogaaminta siyaasadda ee ugu sarreysa dalka waa laga ilaalin karaa tuugnimo waa laga ilaalin karaa haddii annagu aanu dhex dabaalano ama arrimaha dhex boodnana lagama ilaalin karo haba yaraatee marka waxaan aad ugu rajo weynahay in haddana isbedel fiican uu muuqdo kaana aan sii xoojin doono dadkuna ay dareemi doonaan nidaam xalaala oo ka duwan kii hore waa mahadsanti madaxweyne miisaaniyad badan baa dowladda deegaanka soomaalidu ay leedahay sideed adigu u dabageli karaysaa miisaaniyadaasi inay sidii saxda ahayd dadkaagii adigu aad madaxweynaha waay ay ugu baxdo oo kii biyaha u baahnaa ku baxdo kii beeraha u baahnaa ku baxdo kii shuruucda kale u baahnaa ku baxdo kii caafimaad u baahnaa kii waxbarasho u baahnaa yacni mas-uuliyadda ugu sarreysana maadaamaad adigu leedahay inay lacagtii sidii saxda ahayd u tagtay sideed qaabka aad u samayn karaysaa waxaan u samayn karnaa kow in marka hore mas-uuliyiinta ummadda dadka looga dhigayo laga fiirsado oo mas-uul tuugo aruurba sadiitaan waxaa ka fiican marka hore inaad ka fiirsato oo dad mas-uuliyiina oo mas-uuliyad qaadi kara oo ummadda u danqanaya oo aqoon leh oo waxa ay macnaha ay leedahay horumarku garanaya in heer degmo ilaa iyo heer gobol iyo ilaa iyo heer deegaan laga soo buuxiyo bar ahaantaa waan samaynay qayb ahaantaa waan samaynay bilowga anagu ma xuma ilaa hadda 100% ma odhan karno dad khariban ma soo dhexgelin ama dadkoo dhan way fiican yihiin laakiin dadaal aad u ballaaran baa dhinaca laga sameeyey kow laba in dadka wanaag guuda laguma hadlayn karo keliya waa systems control waa inuu jiro qofkan waa qof fiican oo wanaagsan oo sumcad leh oon tuug ahayn inta la yidhaa laba baal mari karo nidaamka xafiisyadana dee nidaam waxaa loo disaangareeyay baa jira wax walba oo baxaya inuu qaraabakiil ka fogaado qaabka shaqaalayntu ay xalaal tahay wasiirku iyo wasiir ku-xigeenku iyo dadka la shaqeynaya ay yihiin dad fara badan oo process wixii la samaynayo process maraya process markuu wax marayo hal qof kaliya kuma ekaanaya dhowr qof buu ogaanaya marka waa in sharaaka abuuranto in wax la hado 5 qof 6 qof haddii marka horeba dad ummadda ka danqanaya meesha lagu soo ururiyo 5 qof 6 qof isku xafiis oo wada tuugina isku ururto chance kuma badna haddii qaraabakiilkii laga ilaaliyo sidoo kale ma badnaanayso laakiin still collusion wuu dhici karaa dad noocaas tuugno ku heshin kara waa dhici karaan haddii saas dhacdo xafiiska dhexdiisa ka dhacdana in ay jiraan financial iyo monitoring systems lagu eegayo procedurada la marinayo sax yihiin in hanti dhowrku uu ka shaqeeyo systemka la adkeeyo baritaanka mashaariicda la dee shacabkii in consultation la sameeyo mar walba shacabkii mashaariicda baxay qiimeyn lagu sameeyo kulli mar walba waxa la sameeyaa evaluations in la sameeyo 3 bilood 6 bilood 9 bilood 12 bilood quarter walba in qiimeyn la sameeyo mashaariicda aan ku talagalay ee liido ay baxayaan ee liido la sameeyaa ma la sameeyo mise lama sameeyo marka haddii liido biya laga sameeyo magaalada Jijjiga oo biyaha aan la sameeyo way hal la sameeyo taaliftigeeda saxaafaddu qayb weyn bay ka tahay marka in si joogto ah qiimeyn loo sameeyo xafiisyada loo yeero maxad qabateen xafiis kasta qorshe leeyahay qorshihiisu uu cad yahay xafiiska waxbarashadu wuxuu leeyahay content school baan dhisaya xafiiska biyo wuxuu leeyahay intaas oo ceel baan qodaya xafiiska caafimaadku intaas oo isbitaal baan dawooyin geynaya ka shaqeynaya delivery in la checkarayo la yiraahdo okay saas qorshaha u aha maxaa ku ful maxaase ku ful in la yiraahdo oo at the highest level saa loo weydiiyo yaa muhiim haddii wax fuli waayeen marka ay imanayso haddii fuli waayeen maxay u fuli waayeen in la yiraahdo in qaabkaas la raaco ayaan isleena wad ku hubin kartaan in dadka adeega ay helaan loo baahna madaxweyne xagga xorriyadda hadalka waxaad moodaa markaad maqaaxiyaa fadhiisato dariiqa socoto jigjiga intii amika anu aan ka arkay inay aada isku bedeshay oo qofkii si xoroo iska hadlayo madaxweynihii dhaliilayo madaxweyne tagay dhaliilayo si xoroo hadlay qofkii aanu askari ka baqanaynin maskaxiyan aad moodo dadka inay soo kabanayaan xorriyadda hadalka dadku qaar baa si khaldan uga faa'iideysta sidee dadka loogu wacyigelin karaa inay xorriyaddii hadalka caadigaaba maadaama dadka deegaanku aanay la qabsan muddo inaysan hadlaan horta qeexidda aad baan ugu faraxsanahay in dadku ay fikirkooda sheegayaan oo xor yihiin oo aan cabsanayn oo xukuumadda dhaliilayaan oo madaxweynaha wax ka sheegayaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii anigu waxyaalaha ay farxad gelinaya waxaa ka mid ah shacabkanaga inaan arko iyaga oo aan baqanaynin maadaama anigu aan ahay qof deegaan ku koray 40 jir baan ahay inta aan noolaa maalin iyo habeen walba waa lagu wanjalayaa dambi baad galaysaa waa lagu dhageysanaya baa la odhan jiray deegaanka shacabkanaga taasoo maskaxiyan dadkii duhumanays ku samaysay oo gebigood dadka ay noqdeen dad maartay
aad u khariban hadda in ay si hor u fikiraan ay wax dhaliilaan oo waxa khariban sheegan anigu ahaantay shakhsiyan aad ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaya dhanka wax khaldan bay dadkii sheegayaan leeyahay macnaha see inay xoriyada qolki fahmi waayaan oo khalad ay u qaataan way baran doonaan wax kasta hal mar laguma gaaro xitaa dalalka horumaray free speech ama xoriyada qolka ka hirgalay ilaa iyo hadda dad mar badan maxkamad la keenaa jiro loo qabsado leeyahay waa dhaaftay xadkii leeyahay baa jira inaguna sidoo kale waan yeelan doonaa dad nooca sameynaya anigu waxaan qabaa hadda dadku intay baranayaan in aad loogu dulqaato oo maadaama shuruucdii iyo qawaaniintii iyo xoriyada qolku muxuu yahay weli dadka aynu si fiican uga dhaadhicin marka hore intaan xarig iyo diidmi iyo waxan waa kharibad intaan la odhan in loo bandhigo oo tababarayaal iyo aqoon isweydaarsi la sameeyo far badan fahankayga dalalku ay kala duwan yihiin limitka freedom of speech-ka hadda dalka maraykanka oo kale oo aad buu waxa weeye waa extreme macnaha qofku waxyaalo dalalka yurub oo kale mamnuuc ka ah kaga hadli karaa yurub xoriyada qolkeeda ka yaalay iyo maraykanku isku mid maahay kala duwan waxaa laga yaabaa maraykanka oo kale haddaad qoomiyad dhan wax ka sheegto oo qoomiyada madowga caydo ama cadaanka qofku uu caayo qoomiyad baad cayday ama qoomiyad wax ka sheegta laguma odhanayo maraykanka shuruuc badan bay leeyihiin oo aad meel xad buu gaaraya yurub oo kale wadannadu kala duwan yihiin laakiin guud ahaan waxyaalo intaa ka sokeeya oo in badan inta lagu ogeyn laakiin lagu odhanaya halkaa ha gaarin oo waxyaalahaas waxay noqonayaan inaad aflagaadayso qoomiyad ama dad ama jinsi inaad hayb caayso yaa loo qaadanaya loo odhanaya way jiraan inagu markaa weli meelaha ma hahaaban karno maynaan gaarin laakiin ugu yaraan laba qodob baa inta badan la isku raacsan yahay adduunka inay khalad tahay oo ayna ku jirin xorriyadda qowlka mid waa waxa la yidhaahdo isku dhufasho wixii incitement la yidhahdo isku dhufasho haddaa intaad suuqa fadhiisato mikrofon qaadato tiraa reer hebelow kaca oo reer hebel laaya oo xorriyadda qowlka ma jirto waa fal dambiyeed waayo waxa aad samaysay wuxuu toos u keeni karaa dhiig daata iyo fal dambiyeed marka in la suga maayo waa in laga hortago incitement baa leeyahay kicin baa leeyahay iyo muxuu ahaay iska horkeen dad kicintu marka laakiin haddii qofku uu qolo dhaliilo hadduu yidhaha madaxweynaha reerkooda ayaa qandaraasadii qaadanaya madaxweyne mustafe muxuu ahaayey beeshiisa ayuu wax siiyaa beeshoodu sidaa ay saa weeyaan waa beel xun beel fiican maaha hadduu yidhahdo kama baxsana leenka xorriyadda qowlka incitement maaha inuu yidhaahdo ma fiicanta akhlaaqiyan mise ma fiicin oo dad dhan uu isku duudubo waa su-aal kale waa more of waa ethical question laakiin freedom of speech-ka waxba kagama dhicin ninkaasi ra'yi la qumanaa buu sheegay oo uu leeyahay ninkaas saas ama been ha ahaato ama run ha ahaato awal waxaa la odhan jiray waa propaganda la odhan jiray hadda propaganda maaha haddii la tahay qofka ha sheego caddaynteedii iyo xaqiiqadeedii ha soo raaciyo hadduu yidhaahdo reer hebel wasiir hebel reerkooda hala laayo ka kaca ama hebel shaksi hebel la yidhaha hala dilo xorriyadda qowlka ma jirto arrintaas waa fal dambiyeed waxaa kaloo aan soo wada aan raacinaya arrinta labaad ee la ogolayn xorriyadda qowlka waxaa ka mid ah waxa akhlaaq xumada luqadda cayda ah muxuu ahay waxyaalaha bulshadu hadda ay isku raacsan tahay inay ceeb tahay kelmada xun in lagu hadlo astaamo xun in la sameeyo waxyaalaha noocaasa vulgar language oo kale xorriyadda qowlka ma jirto oo ma wanaagsana marka laakiin taas laftigeeda bulshada inay xadaysa ay tahay bulshada waxay xadaysaa jirta hadda hebel hooyadii saas uu ahaa hebel hooyadii kana saas waxyaalaha hadda 10 sano u dambeysay la caadaystay deegaankan ay ka mid ahay in xukuumaddu ay dadka mucaaradka ku noqda hooyooyinkood iyo walaaladood iyo gabdhahood iyo raggood iyo waxyaalaha isleedahay ceebo weeyaan ama ha jiraan ama jirin ay u soo ururso oo sheegto waxyaalahaas akhlaaqiyan waa khalad marka annaga xukuumad ahaan waa naga mamnuuc shacab ahaanna waa mamnuuc ma wanaagsana laakiin maadaama qof mas-uula laga sheegay darteed mamnuuc u noqon mayso xitaa qof aan mas-uul ahayn wadada taagan inaad hooyada caydada waa ceeb akhlaaqiyan marka waxyaalaha u baahan bulshadu inay sansar garayso oo qofkaasi uu noqdo qof bulshada ku ceebaysan haddii gabadh iyo islaan iyo eedi iyo ayey iyo oday iyo wax ka sheegayo inta bulshada ay takoortay qof Soomaaliga dhaqanka Soomaaliga uu ka baxaya kaasi xorriyadda qowlka la gaari maayo intaan las qabsanna laakiin hadduu qofku ninka suuqa jooga ku yidhaahdo hooyada waa sidaa yidhaahdo cay loo qaato hadduu madaxweynaha ku yidhaahdo hooyada waa sidaas noqoto dembi ay noqoto waa khalad hooyadu ma kala fiicna ama madaxweyne ha dhasho
ama qof caadi oo wada xoogsato wadada jooga ha dhasho hooyo in la caayo waa khalad صدق in la caayo waa khalad qof caadi oo bini aadam in wax shakhsiyadiisa dhibaato ku ah lagu caayo waa khalad arrimahaas in bulshadu laftigeedu xadka ay waynu leenahay Soomaaliyaani waa la burburiyay in la soo nooleeyo intaas laga hortagi karaa waxyaalaha akhlaaq xumada ah labada qof hadii laga badbaado dadku waxay rabaan sheegaan dhibaato male way madaxweyne adu ma kula tahay dhibaatadii qoyskaaga ku dhacday ama ehelkaaga ku dhacday inay qayb ka ahayd dhibaatada xorriyatul qowlka adiga ka soo gaadhay markii adigu aad reports ka qori jirtay ama articles ka bilowday ee aad ku dhaliilaysay dawlad deegaankii hore Soomaalida wixii halkan ka jiray ama aad kaga hadlaysay si caamaba inay caqabadii noloshaada qoyskaaga la soo diristay qayb ka ahayd ha طبعا way ahayd in badan waxaan ka hadli jiray xorriyada qowlka waa in la ilaaliyo maxaan biinay cid ma caayno cid ma aflagaadinino waxaan ka hadlaynaa waxa weeye wax ra'yiganaga ama saxsanada ama khaldanaado ama xaqiiqa ku saleysnaado ama ku saleysnaan taas qofka akhriya u taala antidaas hala lunsaday ciidaas la xansuuqay halkaas dad lagu dilayaa dhibaatadaas dhacay waxa sameeyay maanta dadka joogana way leeyihiin farabax badan way leeyihiin marka shalay wixii aanu arkay inuu sax yahay inaan sheego maanta aanu dembi kama dhigi karo garanaysa waliba waan ku ixtiraamayaa dadka taas macnaheedu ma aha in qof waliba wuxuu sheegay sax tahay laakiin qofka waxa khaldan sheega waxa saxda ah inta la sheega laga hortagay lama diladii haddii qof uu report bixiyo ida arintaas ka jirta deegaanka kana jirta adiguna report ka duwan inaad ku dagaalanto oo fikir lagu dagaalamo yaa ka muhiimsan inaad tira qofka saa sheegaya muxuu u sheegay hal aamusi taariikhiyan adduunka ma dhicin xansuuq adduunka kama dhicin there has never been a massacre without silencing for the people first ma dhicin marka qofku marka dadka aaminsiinayo ee hore uu leeyahay ar hadla waxay hordhac u tahay dictatornimo iyo xasuuq soo socda taariikhiyan marka wax la qarinayna jira marka wax dadka loo dilayo marka anu waxaan qarsanayna ma jirno waxaan ku kalsoonahay inaan system nadiif ah wadi doono cid walba wax sheegtana waxaas ay sheegayso shacabka ay arki doonaan inay been tahay haddii uu been yahay hadduu sax yahayna inaan cash ka qaadano oo khaladkaniga haddii aan qaadano oon saxno intaas uu yahay wax meesha yaala way madaxweyne arrinta xorriyatul qowlka aan ka bixin dareenka qoyskaaga imka sidoo yahay marka dibkii kadib haddii aan dib ku xasuusiyo anigoo ka xor alxamdulilah rabbil caalamiin way fiican yihiin aad buu wanaagsan yihiin sanad ka hor xaaladooda xaalad aad u liidata ahayd badankood way qaxeen hantidoodii waa lala wareegay laakiin hadda waxay aad ugu faraxsan yihiin dhammaantood soo noqdeen dhulkooda joogaan madaxweyne marka loo eegayo arrintii deegaanka ka dhacday dhalinyaro badan oo buugga lasoo saaray ku xusan baa jiro heega loo yaqaano dad badan oo xil hayoo baxsaday fursadda ah inay dadkaasi wadanka ka baxaan waxaa laydiin aaneynaya inaad xukuumaddiinu ay fursadda bixisay oo waqti dadkii la siiyey ay ku baxaan iyadoo la ogyahay la garanayo dhibka dadkii geystay marka dhaliisha ah in iminka dadkii laga daba tago oo wadamadii jaarka ama laga codsada ama inay joogaan iyaga laftoodii dib loogu eedeeyo miyaanay noqon karin mid ay xukuumaddiinu leedahay aanay lahayn dadkii u tageen iyo dadka baxsaday laftoodii waa la odhan karaa arrintaas waa dood saxa laakiin dadkan dembiyada galay shalay toole waxaanu ku eedeyn jirnay in wadanku sharciguna ka jirin oo qofkii la rabo madaxdu iska qabsato annagu marka qofka dembiilaha in waxoogaa baaritaan la sameeyo document haddii la leeyahay hantuba dhacayn hantuu dhacay lasoo eego lasoo qoro haddii la leeyahay dad bulaayeen dad kulaayeen lasoo xaqiijiyo lasoo qoro procedure sharci inay marto weeyaan sifa sharci inay marto intii sharciyadda la diyaarinayay wax meesha ka dhashay weeyaan marka awoodii marka aan haynay iyo kanshihii marka aan haynay kumaanan qabqaba karayn badankooduna waxay ahaayeen dadkani dad mas-uuliyad kala duwan hayay qaarkood xildhibaano ahaayeen u baahan in wada xasaanad laga qaado intaan la qaban karo marka dhankaas waxaan odhan karaa cagjiid hadduu jira waa xagga sharciga in lasoo diyaariyo cagjiid ka jira laakiin waxaan u qaban weyne muxuu ahay qoomo ah xaggay kama jirto sababtoo ah annagoo waraaqihii dhammaysanin iyo sharciyaddii iyo nidaamkii lagu soo qaban lahaa inaan ku dhexdhacno iska qabanno waxay noqon lahay sharci darra ballaaran annagoo ka hadlayna sariirta sharcigana afar niisaan u qabana darteed sharci kutumasho kuma bilaabi karno xukunkana madaxweyne iminka waxa xidhan madaxweynihii kaa horreeyay xafiiska kaaga horreeyay saad u aragtaa xarikaas madaxweynihii ka horreeyay deegaankan waxa uu ku xiran yahay kiis
kii la xiriiray tacadiyadii ka dhacay magaalada Jijjiga dadkii lagu laayay 4 August oo maartay oo boob balaaran oo isagu lagu eedeeyay inuu hogaaminayay ay ka dhacday halkan dowladda federaalka kiiskaas ay soo qortay ayuu ku xiran yahay laakiin anu waxaan qabaa kiiskaas inuu yahay ka ugu sahlan in la weydiiyo ay tahay maadaama dadka dhintay dad Soomaali aan ahayn macnaheedu maaha inaan dadkaas ay dadka Soomaaliya ka fiican yihiin dadkii ku dhintay labaataniyo kun dad gaadhay oo Soomaaliya ayaa lagu laayay deegaankan 10 sano oo isagu uu maamulka siyaasad kala duwan u hayay ama hoggaan nabadgelyo ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo waxaas dhacay tacaddi aan ka hadlayno Amnesty International Human Rights Ethiopian Human Rights Council xukuumadda deegaanka xukuumadda federaalku isla qirsan yihiin in laga xisaabtamo oo la weydiiyo inay sax tahay ma qaba haddii saan la yeelin aniguna wixii aan ku kacay tacaddiya berrito leh inaan la xisaabtamo inuu ay wada furaysan qaba waana taariikhdana adduunka waxa dib loo raaco dad badan baa u arka in argoosi ay tahay in laga hadlo dadkii hore dadkii wax laayay dhibaatay taariikhda asalkaba waxa dib loogu noqdaa oo loo eegaa in wixii xumaana laga leexdo wixii wanaagsan laga daydo walawada qof taariikhda waxa loo rakadganaya taariikh madow oo aad u dhibaato badan ee deegaanka Soomaaliya shacabka taariikhdaas madow cidii ka qayb qaadatay ama hormoodka ka ahayd in sharciga la weydiiyo oo la xisaabtamo waan qabaano isla xisaabtankaas kadib wixii iscafisi oo iman kara laakiin anu waxaan qabaa in arintaas ay tahay arin socota oo process sharci ka jiro ra'yigayga anu waxaan qabaa muhiim ah waxa laga yaabaa anu inaan qabo inuu dambiile yahay waxa laga yaabaa inaan qabo in dhibaatooyinkii deegaanka ka dhacay isagu amriyay ra'yiyan laakiin hadda waa arin maxkamad gacanta kula jirto oo baaritaan lagu wado marka waxa aan sheegay tuunkayga inuu sax yahay inuu sax yahay waxa soo saari doonta processka sharciga markuu dhamaado ee maxkamaddu go'aan ka gaadho madaxweyne dad badan baa dhulkoodii laga qaaday Jigjiga iyo meelo kale ay xaq u lahaayeen dad kale la siiyay ama qurbo joog la siiyay 4 August dad baa hantidoodii la burburiyay wali diiftii magaalada ay ka muuqato oo arkaysa iyagoo jajaban xukuumaddaadu maxay ugu tala gashay dadka arintaas si fiican baan uga howlgalay waxaana laga gaaray go'aano cadcad in baaritaan dhulka la xiriira la sameeyo anagoo ka dadaalayno isla dadka la dhacay dhulkooda loo soo celiyo haddana in dad kale oo khaldan ay ka faa'iideystaan dhexboodaan ma rabno saa daraadeed inta aan go'aan la gaarin iyo xal loo kicin marka hore waa in daraasad la sameeyo marka hay'adihii ay khusayso ay ka mid yihiin dowladda hoose iyo xafiisadii arrimahaas la xiriiray sida booliska oo kale maxkamadihii kulli amarka way qabaan in arrimahaas si degdeg ah ay u galaan oo iyagoo raacaya sifa sharci ah dadkii dhibanayaasha ah dhulka laga qaatay dhulkooda loo soo celiyo kuwii muxuu ahaayay qaatay laftooda qaar baa si khaldan lagu siiyay laakiin hadda dhulkii iyagu yeeshay kuwa laftooda si loo macaamil lahayn ka soo talo bixiyaan marka waa hawl socotay way hawshaas way madaxweyne gabagabadii waxa jirta arinta shidaalka ee Ethiopia oo dhami saameynta badan ku yeelatay ee laga soo saaray dowladda deegaanka Soomaalida waqtiga shidaalkaasi ku soo beegmay iyo waqtiga xaaladda isbedel ku dhacay in la helay oo la fidinayo oo la iib geynayo oo la soo saaray iyo xaaladdu way islahaayeen halkaasi mashaki baa jiray inuu shidaalku hore u socon jiray oo uu iib gali jiray mise xaaladii deegaanka qalalaasi ka dhacay uu qayb ka ha shidaalku ma shidaal hadda ka hor la iibin jiray ma jiro oo deegaanka uu leeyahay waxaa jiray experiment tijaab ahaan foostooyin 100 foosto lagu sheegay ahaan oo la qaado oo lagu tijaabiyo warshadaha dalka gudihiisa ah laakiin shidaal la iibgeeyo oo deegaanka uu leeyahay ma jirin laakiin hadda waxaa socda in iibgeyntii laga shaqeeyo waa la soo saaray qayb ahaan waa la arkay meelaha qaarkoodna tijaab ahaan ba loo arkay laakiin la sii ballaariyo u baahan yahay gaas iyo shidaal labadaba marka shidaal hadda socdo oo baxa oo deegaanku leeyahay ma jiro way qaabkay doonaysaan markaa dowladda deegaanaha uga faa'iideysataan xukuumadda dhexe maadaama uu khilaaf ka yimid marka hore hadalkii ra'iisul wasaaraha iyo arintii uu 5% iyo waxyaabahaas ka yimid qaab nooceedin ugu tala gashay xukuumadda horta arinta hore ra'iisul wasaaraha hadalkiisa dad ujeedada waa si rabeen u bedeshay macnaha uu ka hadlayay ra'iisul wasaaruhu wuxuu ahaa meesha shidaalka laga soo saaro goobta weey deegaanka Soomaalida ma specific location laga soo saaro shilaabo oo kala mid ah shilaabo dhow weyn deegaankii laga halka local community meeshii 5 to 10% bay ku leeyihiin buuxid wasaaruhu deegaanka Soomaalida
dowladda deegaanka Soomaaliya iyo deegaanka Soomaalida maamulka ka jira 5% kula ma oran marka clarification arrintaas u baahan in la sameeyo hadda waxa socda wada hadal arrinta ku saabsan wasiirka dowladda federaalka inuu yimaadeen waan wada hadalay meel fiican bay marayaan arrimuhu sheerka ay dowladda federaalku yeelanayso shidaalka iyo dowladda deegaanku waxa ay yeelanayso iyo oo ka baxsan 10%ga bulshada meesha laga soo saaray shidaalka magdhow ahaan loo siinay maadaama dhulkii environmental ku dhacayo iyo dhibaatooyin ay marayso waa laga heshiin doonaa way socotaa ra'yiga soo jeediyana way jiraan dhinac walba laakiin dastuurka Itoobiya hadda ka hor kuma qornayn nidaam noocaasi oo intaasna waxa yeelanaya deegaanka intaas waxa yeelanaya kuma qornaan jirin hadda hadalkan socda in maartay arrintaas lagu gaari doono oo wax fiican ka soo bixi doono baan qabnaa way madaxweyne iibkoo kale Djibouti Somaliland Soomaaliya area badan ba charity qaabkay doonaysaa inaad iibkaysan arrintaasi qodobadii maanta aad ka wada hadasheen musabix bay qayb ka yahay baleeyay marka miyay jirtaa qaabkay doonaysaa inaad iibkaysan arrintaas waa arrin weli socota qorshayaal hore oo jiro oo dowladda Itoobiya ay kula heshiisay dowladda jaarka ah in shidaalka laga dhoofiyana way jiraan marka waxaan jeclaan lahaa arrimahaas inaan xog dheeraad ka helo marka hore laakiin heshiisyo hore oo la galay oo shidaalka meelihii la marin lahaa way jiraan sababihii loo galay iyo sida loo fulin doono waa arrin weli aan xog dhammaystiran ka hayn way madaxweynaha Somaliland baad kulanteen wajaaraad ku kulanteen waa markii ugu horeysay si rasmi ah u kulmaan madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida iyo madaxweynaha Somaliland ee waliba halkaa ku kulmaan kulankiinaasi muxuu ka bedelayaa nolosha dhaqaale ee labada dhinac waxaan qabaa kulanka ka horba intii hadda aan isbeddelka dhacay nolosha dhaqaale ee deegaanka Soomaalida iyo Somaliland aad u isu bedelay isdhexgalka bulshada way korodhay ganacsigii wuu kordhay iyo socodkii labada dhinacba dadku si xawliya ay isu daba marayaan sidii ay ahaan jirtay ka hor intii aan xadka dhibaatooyin badan xariga laga keenin ayaa hadda uu maraya annaga kulanka wuxuu sii siyaadinayaa kalsooni dheeraada in meesha timaado waxaan mar walba sheegnay inaan niyad wanaag aad u badan u qabno shacabka Somaliland walaalahana gaar ahaan Soomaalida guud ahaan iyo waxaan jeedaa guud ahaan Soomaalida iyada oo dhammaan aan niyad wanaag u qabno oo wada dhalasho iyo dhiig anaga dhaxayso haddana anaga deegaanka Soomaalida ahaan Somaliland si gaar ah ayaa maartay isu soo xidhannahay maadaama oo ganacsi ballaaran una dhex maro maadaama oo ay yihiin meelaha ugu badan ee maartay raashinada iyo waxyaalaha fara badan loo baahan yahay ka soo galaan inta badan deegaanka gobollo kale oo iyaguna Kenya iyo Soomaaliya qaybo ka mid iyo xiriir la leh way jiraan oo iyaguna border la laakiin deegaanka badankiisa gobollada ka mid ah ee waaweyn ee shacabka badan ku nool yihiin Somaliland xad bila leedahay si fiican ma isugu dhex jiraan dhalasho badan ka dhaxaysa weeyaan dhaqan ahaan aad isugu dhow luqad ahaan aad isugu dhow marka si gaar ah ayaan maaragtay anigu runtii kalgacal ugu haynaa shakhsiyan shacabka Somaliland arrintan ma sii xoojisay kulanka nagani waxaalihii ka dhashay siyaabo khaldan hadallo loo sarifayna waan ku soo afjarnay halkaas hadii la yiraahdo waxaan ku kalsoonahay in inta xukunka aan hayno xiriirka Somaliland iyo deegaankan uu ahaan doono mid aad wanaagsan haddana waxaan ka shaqeynaa in isdhexgal ballaaran oo kan hadda ka sii wanaagsan oo gawaaridu inay iyagoo taarikooda wataan iyo balad numberkooda ay meel walba ay saas u dhex maraan aan ka shaqeynaa hadii la yiraahdo in ganacsiga jaadka madaxweyne waa waxa ugu weynay Somaliland halkan uga taga ama khudaarta baradhada basasha waxyaabaha iska wax badan baa u taga imika Kenya mudooyinkii ugu dambeeyay waxay ka shaqeynayeen qaadka miroga oo kale Soomaalida loo iib keeno caqabadaasi miyay tahay mid saameyn ku keeni doonta adeegiina dhaqaale ee halka u gudbay maadaama dadka Soomaalida dad jaadka aad u leeyihiin wallahi wuxuu waa ganacsi waa xor weeyaan dawladdu iyadu halka laga keen waran kartaa anaga waxa noo yaala waxa weey xiriirkii ganacsi iyo shuruucihii noo dhaxay Somaliland isu socdaan wixii ama jaad ha noqdaan ama badacad kale ha noqdaan ama khudaar ha noqdaan xaggan ka tagayna demand haduu jiro baahi hadii jirto in la geeyo halkii
ma oran karno soo dowladda Somaliland cidaas inay ka qaadanay cidaha la xidhiidhan inaan xaq u leenahay ma qabano laakiin waxaan ku kalsoonahay in tayada ganacsi iyo xiriirkii soo jireenka uu sahlayo in marba advantage anagu aan yeelano deegaanahan si fiican madaxweyne miyay jirtaa arrinta la xidhiidha maadaama khilaafaadkii geeska dowladda Itoobiya weynay ay doonayso inay soo afjirto wadamo badan sida Eritrea, Soomaaliya, Djibouti khilaafaadkaas oo soo dhamaaday in kulankiinu ay qayb ka ahayd adigii madaxweyne Muuse Biixi in arrinta Soomaaliya iyo Somaliland miiska geeska Afrika qayb kamid ah la geeyay ma jirto may hawlaha la xiriira arrimahaas sida loola macaamilayo dowladaha jaarka waxa exclusively u leh wasaaradda arrimaha dibadda marka kuma jirin wada hadalkanagi dad badan oo ka shakiyay baa jireen qodobadaasi jireen oo ka wada hadashay mar walba shaku iska jiraya mar walba dadka ay kulmaan laakiin qodobadaas kama wada hadlin waana arrin dowladda federaalka Itoobiya mandatekeeda hoos imanaya waxaan ka wada hadalay waxay ahaayeen arrimo la xiriira ganacsiga ammaanka walaaltinimada iyo kobcinta isdhexgalka bulshooyinka deegaanka Soomaalida iyo Somaliland way madaxweyne dadkii isbedelka aad ku dhaliseen dad badan badaydeen isbedelkiina waa adiga madaxweynaha maanta markuu isbedel dhacana dadku fursadii dowladnimo ma wada helaan miyay jirtaa caqabado ka haysta dadkii isbedelka aad wada dhaliseen oo fursadii dowladnimadii u helin oo systemka caqabad ku hayay waxaa jira marka halgan lagu jiro dadyo fara badan baa halgan ka gala oo arinta dhibaatada jirta sheega dadkaasi waxay ku midaysan yihiin baa laga yaabaa inta badan dhibaatada nidaamka ay la dagaalamayaan uu wado inay ku midaysan yihiin laakiin fikir inta dhaafsan inay ku midaysan baa dhici karta marka qaarkood marka guusha la dhaliyo waa iska caadi waa iska dabiici la kala leexdo waxa loo kala leexanayaa waxa weeye qof dulmigii shalay uu diidanaa mid lamid inuu sameeyo ku bedelo rabaa jira laga yaabo qof boobkii shalay uu dhaleeceynayay isagu inuu sameeyo u dowladeeyo sameeyo jira laga yaabo qof waxaan ula dagaalamay ujeedaba aan ahayn cadaalad iyo sinaan iyo Soomaalinimo wax kale ula dagaalamay jiri kara marka meeshii la yimaado marka dadkii afkaariga ku kala bixi karaan marka dhamaan looma aaneyn karo caqabadooyinka jira hadda in ay jiraan dad hunguri deedaya oo kursi raadisa oo kursi dawladdu wax ka waayay kaliya lagu ma eedeyn karo waxa kale oo jirta in afkaarta laftigeeda lagu kala duwan yahay marka hore wixii loo halgamay inuu kala duwanaa waa suurtagal dadka qaarkood haddii xitaa dawladda ay galaan inay ku qanceen oo u arkaan in iyagu wixii marka ay u arkayeen inay tahay inay dhacdo ayna dhicin waa suurtagal waa iska arrin dabiici ah waxa hadda meesha yaalla waxa weeyaan haddii nidaamkii hore si wax u waday qofku uu salugsanaa kan hadda jirana uu u arko in kii hore waxba uu dhaamin siduu u halgamaya weey wuxuu u halgamayaan qabaano hadda inuu fikirkiisa si xor ah u dhiibto sababtoo anaga jijiga inaan nimaadno oo dad intaan shirino nidhaahno dhibaato jirta looma ogolayn inaan ka hadalno dibadda anaga joogna lama ogolayn wadogta markaan wax sheegayni qofka banaanka jooga ee hadla qofka wehelkii ah ayaa loo diliyay ama loo xidhiyay ama loo dhibaateeyay ama loo caburinay ama loo caburinay taas haday dhamaatay dadku waa inay si xor nidaamka hadda jirana waxa ay leeyihiin uu bixinaya u sheegaan afar mabda' baa ugu muhiimsanaa ani shakhsiyan intii aan u arkay in la halgamay ahayd koow sida aad ka hadashay markii dhaweeytay boob iyo qabyaalad iyo musuqmaasuq iyo qaraba kiil balaaran oo madaxdii markaa meesha joogtay ku dhaqmayeen oo shacabka hantidiisii lagu tagafaday taas dhibaato ah aan sheegayno la waa khalad taa waxa ka sii darnaa tacadiyo iyo xansuuqyo ka dhana xuquuq insaanka oo ka socday deegaanka taana waan diidin waa xalayn arrintaas sax ma ah oo waa khalad qabyaalad waan sheegay hadda hore laakiin iyo gaarana qabyaalad ah in qof inta uu isleeyahay reerkiina weeye ama isleeyahay ku xigtaa si gaara power iyo awood dhaqaale iyo misaaseedba loo siiyo waxaa ka mid ahaa in hantidii deegaanka dad shisheeya loo raro oo lagu gato kursi lagu gato oo la iska dhaadhiciyo afartaa qodob mid ka mid ah hadduu hadda u socdo ama madaxda sare ka socdo ama madaxda dhexe ama kuwa hoose cid walba xaq bay u leedahay ciddii shalay dagaalamaysay iyo ciddii shalay aan dagaalamayn labaduba xaq bay u leeyihiin inay tilmaamaan la dagaalamaan nidaamka anaga ku hagaagaya dowladnimada ku hagaagaysa dhibaato uma arkaan waa arrinta dadka oo dhan inayna jeclaadaan qasab ma sharti ma laakiin
qofka hadduu u dagaalamo waxa ugu liita qofka hadduu u dagaalamo maxaa wax waayay maxaa wax liisi waayay taas waxaan arkaa inay shakhsiyan ay daciifnimo tahay qofku inuu isagu maslaxa isagu shakhsiyan uu leeyahay inuu ka dhigo mid dad way jiraan marka dad marka maslaxooyin shakhsi oo iyagu ay waayeen mid dad ka dhigaya oo caama caqabada badan oo noocaas u jira ma jiro mucaaradnimo weeyaan mucaaradnimo ogolahay dad badan oo waxa jiray aad wada halganteen oo baasaboorro kale oo aanu sharciga dowladdu dhigaynin sitay oo xilalkii ayaga laftoodu jeclaan lahaayeen waayey caqabad miyay kaaga timid dadka caynkaas wallaahi caqabad sii weyn ma jirto laakiin dee dad badan oo ku habboonaa marka loo eego aqoontooda iyo khibradooda inay deegaanka caawiyaan ama mas-uuliyad qabtaan oo maadaama baasaboorro ajnabi haystaan dartood u geli waay way jiraan kulligood dad maaragtay caqabada ma wadaa dad fara badan way fahmeen arrintan in ahayn arrintii wax laga qaban karaya marka iyada qaabab kale oo ay ummadda wax ugu qaban karaanna waan ka shaqaynay badankooda laakiin dee xitaa haddii qaabab kale la maro dhammaan dadka dowladda dhan wada gelin karo basasku way xadidan yihiin la shaqaalayn karo marka dadka kalena waxaan ka shaqayn doonaa uun haddii aan qofka ku qanacsannahay una aragno inuu yahay muwaadin deegaanka wax u tari kara inaynan arrintan baasboorku caqabad noqone qaabab fara badan oo bulshadiisa ku caawin karo inaan ka shaqayno oo aan ku taageerno sax madaxweyne dhalinyarada marka laga hadlayo shaqo la-aan badan baa jirta dadka dhalinyarada ee gobolkan u dhashay waxay u shaqo tagaan wadamada jaarka iyo meelo kale qaar way dhoofaan oo dadka dee dhibaatooyinkii caqabadaha la kulmaya ka mid yihiin wax nidaama oo aad ugu talagelaysaan shaqo abuur dhalinyaradii ma jiraan way jiraan toddobaadkan gudihiisa 250 milyan mashruuc ah oo shaqo abuurka dhalinyarada ayaa hadda la sii deynaya toddobaadkan kaliya waana arrin aan aad ugu baraarugsannahay shaqada boqolkiiba waxaan maraynaa 70 iyo ku dhawaad statistics ah dadka deegaanka jooga dhalinyaradaas markii haddii ay shaqooyin waayaan ma aha oo kaliya arrin dhaqaale waa arrin security noqon karaan threat bay noqon karaan marka waa in si dhaqso ah si dhalinyarada loo shaqaaleeyo laga shaqeeyo dadaalo badan baa socda oo shaqo abuura shaqo abuurka dowladda kaliya ku koobnaada ma aha waa in fikirro cusub oo shaqo abuur la keeno ay ka mid tahay investment maalgeliyaashu inay deegaanka soo galaan dhulka maalgashadaan warshado samaystaan beera ay sameeyaan ganacsi ay sameeyaan IT sector ka shaqeeyaan marka in hay-adaha internationalka iyagana ay deegaan aad u soo galaan ka shaqeeyaan marka in siyaalo ballaaran oo ka baxsan dowladda shaqo abuur loo sameeyo ayaan ku tali jirnaa waa arrin maaragtay ahmiyad weyn anaga aan saarayno arrintaas madaxweyne haddii aan soo koobo shalay toole xorriyad baad haysatay nolol gaarad ku noolay culayskii doonaa ku haysto sanooyin badan dalkaaga iyo deegaankaaga maad arag caqabadaha aynu ka hadalnay ka mid maantana adigii baa kursigii ugu sarreeya fadhiya noloshaada maxay iska bedelay walahi iska bedelay mas-uuliyad badan oo ku fuulaysa oo maaragtay aroorba dee dana adiga shakhsiyan adiga aan waxba ka helayn aad ka shaqaynayso awal hore deegaanka intaan ka maqnaa dee walow anigu aan ahaa qof activistia oo qoraallo badan qora oo waqti geliya inuu ka hadlo duruufaha dadka haystaan haddana dee qof shaqo xafiis u shaqo taga oo mushahar isagu uu qaadanaya u taga oo xaafadiisii carruurtiisa iskuulkii geynaya oo dee reerkiisa wixiisii ka warhaya ayaan ahaa hadda hawshani waxay kaa mashquulinaysaa hawshii reerka marka arrintaas ahaan dhanka isbeddel uu ka jira laakiin mar walba waxaan ku qaabisanahay in haddii shalay aan dhowr caruura aba u ahaa hadda ilaa dad fara badan oo soomaaliyeed oo deegaanka 8 milyan ku dhawaada in aroortii go-aanada aan qaadanaya ay saameyn ku yeelanayaan marka mar walba wixii fiican soo kordhiyo oo ku farxaa wixii xun ee ku soo kordha bulshadana waan la qaybsanaa dhibaatada wax badan markaa iska bedelaya laakiin ma yihi qof isku iloobaya kursigan ama aaminsan meeshan inaan ay tahay meeshii ugu dambeysay kareka waqtiga ku dhamaysan lahaa marka waxaan aaminsanahay in subax walba wixii aan qaban karo aan qabto muddada aan joogayana aan wax wanaagsan oo maaragtay la tilmaami karo oo aan qabto marka kadibna waxaan aaminsanahay inaan hawlaha hadda iga baylahsan aan waqti u heli doono ku laaban doono insha allah haddii la yidhaahdo dad badan oo aad nolosha ku saaxiibteen baa jira social media ama baraha bulshada xafiisyadii civil society-ga hay-adihii caalamiga ahaa wadamadii aad maraysay aad ka shaqaynaysay dadkii asxaabta badan ahaa
imika de waa lagu soo koobo adigan waxa askar baa ilaalinaysa madaxweynihii culays badan baa ku saaran noloshaadii hore siad u dareemaysaa aad baan u dareemaya anigu weliba waxaan ahaa dadka soomaalida bulshaawiga tiraa xidhada badan baan oo maaragtay inuu dadka dhex galo oo uu maaragtay la sheekaysto jecel baan ahaa marka kulley xadidaad waan dareemayaa la xidhiidha mas-uuliyadda hadda soo korodhay saan kuu sheegay waan ku dadaalaa in dadka xidhiidha aan la sameeyo i yimaadaan aan saragno haddana marka aan iska dhammayno isbedeladan hadda socdo badankooda dhanka ammaanka iyo waxaas waxaan rajeynayaa inay xaaladdu sidan ka ficnaan doonto oo ii saxamiixi doonto inaan dhexgal bulsho oo kan dhaama aan heli doono laakiin mar walba dee waa saan kuu sheegay waxaan wax maaragtay waaraya oo weligaa aad joogaysa maaha waa mas-uuliyad kooban xilli kooban aad joogayso xilligeeda markaan dhamaysto shuruucaheeda iyo qawaaniinteeda inaan u hoggaansamaan ku qasbanahay oo takoor yar kenya dadka aad ka yar fogaanayso laakiin dadka inaan xidhigkooda ilaaliyo mar walba waan isku dayaa maadaama ay yihiin berito leh kuwaan ku dhex noolaanaya ku noqon doona inay iyaga yihiin waan ogahay marka saaxiibo badan oo kala gooni way jiraan laakiin insha allah xilli kasta oon helo waan ku dadaalaa inaan aana jarin xidhiidhadii oo aan maintain gareeyo connectionski aad baad mahadsantay waad mahadsantahay daawadeelkaas waxau ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar oo aanu xafiiskiisa ku booqanay magaalada jigjiga aad iyo aad baan madaxweynaha waqtigiisa wanaagsan ee uuna siiyey idinkana aan idiin soo gudbino xogaha iyo warbixinaha deegaanka ka jira si ka wanaagsan sidii deegaanku u ahaan jiray idinka mahad celinayna madaxweynehena aad iyo aad baan uga mahad celinaa aad baan mahadsantahay aad baan mahadsantahay